السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي وعن أو نكسن أيان إذن لي هاي أخيارتا سيدا دكسونتهين با مالمهان وحا لوس أنجلس كسعودي محلي هذا شر أو إسكو إيمانيين ودماء وبدن إيقرا لي هذا بيزي أن عادي حين أيان قلي وحان أبودي وإن المخالة صادقة مركا لوس أنجلس waxaa ka socday barnaamij oo lagaga hadlayo information kala duwan ama barnaamijyo kala duwan hase yeeshee sidoo kale waxa maartay face-ka koowaad ahaa ama targetka ugu weyn ahaa ee arimaha soo galootiga wadanka Mareykanka ku soo qulqulay guud ahaanba wadamadan la isku dhaho Central America ama la isku dhaho Latin America wadamadaasi ayaa markaa shirayay shalay markaa waxay soo saareen heshiis ay wada gaareen waxaa shirayay oo heshiiska wada gaaray in ka badan 20 wadan oo ay ka mid yihiin Mareykanka iyo Canada heshiisyada ay wada galeen waxaa ka mid ah in la wajaho sababaha keena qulqulka soo galootiga sida siyaasadda iyo waliba dhaqaalaha سان ogsoonahay wadamo badan oo Latin America kamid ah ayaa dadkoodii soo barakacayaan kuwa oo maartay loo aanaynayo inay ka jirto halkaasi dhaqaale xumo iyo waliba siyaasad xumo qodobka kale waxa waaye in labada sano ee soo socota la qaato 20,000 oo qaxootiga lagana qaato wadamada Latin America bes ah laga qaato Biden ayaa balan qaaday in uu kordhin doono dadka la siinayo fiisaha shaqada ama fiisaha shaqa ahaanta wadanka loogu imaanayo bartamaha America ayaana laga siin doona dadka la siin doono fiisayaashaasi waa dad bartamaha America ka imaan doona insha Allah iyo waliba Haiti lana gaarsiiyo tiradoodii 12,500 oo ruux ama fiisa in la gaarsiiyo waxa maartay la qaadanaya dad reer bartamaha Mareykanka ah iyo waliba Haiti tiradana waxay noqonaysaa 12,500 oo visa workers amina visa workers oo temporary marka si joogto ah uma ahan waa maartay si ku meel gaar ah ayay u shaqeyn doonaan wadamadaasi ayaa isku raacay in ay wajahaan qaxootiga ka hor inta ay Mareykanka gaarin wadamadan sida wadamada la soo galo oo dhan oo marka Mareykanka loo soo socdo la soo maro oo dhan ayaa isku raacay inay wajahaan in Mareykanka maartay intaysan gaarin dadka ay marka ay ayaga horta ay wajahaan oo ay talaabo ka qaadaan Mexico waxay aqbalaysaa ay qaadan doontaa 20,000 oo shaqaale aan joogto ahayn ayay qaadan doontaa sidoo kalena waxay qorsheynaysaa in 20,000 oo kale oo arinka ka madax banaan ay maartay raadiso ama ay siiso shaqo oo u dhashay wadanka Guatemala bisa aan ku celiyo meeshaas Mexico waxay qaadan doontaa 20,000 oo shaqaale oo aan joogto ahayn sidoo kale waxay qaadan doontaa 20,000 oo kale oo maartay u gaar ah wadankan la yiraahdo Guatemala dadkiisa ka imaanaya Canada ayaa ayadana balan qaaday in 4,000 ay qaadanayso ilaa iyo 2028 ani always waxaan dhahaa Canada waxeedu waa ciyaar 4,000 qaadanaysa ilaa iyo 2028 waa gaarsiinay 4,000 laba bilood lagu qaadan kara Canada ciyaarta nagada okay Spain Costa Rica iyo waliba Colombia ayaa iyagana sheegay inay wajihi doonaan qulqulka qaxootiyada kuwa oo ka imaanaya wadanka Venezuela taasoo qasabtay dhaqaale yari iyo waliba ma dhaqaale xumo iyo waliba siyaasad xumo wadanka ka jirto cadeymo la helay ayaa waxay sheegayaan in ma aragtay DHS already dib ay u celiyeen in ka badan 1,300 oo soo galooti ahaa already dib ay u celiyeen heshiiskan waxa wada saxiixay 20 wadan oo ay ka mid yihiin Canada iyo Mareykanka wuxuu qorsheynayay sanadkan 125 kun oo qaxootiya oo kala duwan inuu wadanka keeno
hase yeeshee ilaa iyo hadda maraykanka waxa uu qaatay 12,641 ruux ayuu qaatay tiradii maraykanka uu sheegay inay qaadanayaan weli ma ay suurtagelin waxaa ka suurtagelay oo kaliya 12,641 soo xataa maraykanka waxaa lagu eedeeyay naftirkiisaba in isaga xataa dhibaatada qayb uu ka yahay bacdama tiradii uu ballan qaaday xataa uusan qaadanin heshiisyadan ayaa markaa wadamada wada gaaray shalay oo jumco ahayd waana lagu dhawaaqay share asxaabtaada la wadaag haddaad iigu cusub tahay waxaan ku leeyahay follow like subscribe ha ka iloobin السلام عليكم ورحمة الله وبركاته